qiimayn lagu sameeyey sida dalalka dunidu u kala caqli badan yihiin dhanka garaadka Soomaalida waxaa celcelis ahaan baaritaanada ama indha-indhayntu ku sheegeen Soomaaliya inay haysato 67 taasoo muujinaysa inay Soomaalidu ka caqli yar yihiin Kenyaanka oo haysta 75 ama Suudaanta waqooyi oo haysata 78 Itoobiya iyo Djibouti ayaa iyaguna celceliska IQ-ga haysta min 68 Soomaali badan ayaa arrintan dood ka keentay waxaynu eegaynaa sida arrintan loo qiimeeyay maabkan idin muuqda waxa uu muujinayaa dalalka dunida iyo sida bulshooyinku u kala caqli badan yihiin iyadoo lagu saleeyay sida loogu kala badan yahay dhibcaha IQ-ga IQ waa cabirka garaadka aadanaha dadka doonaya in la cabiro IQ-gooda waxay maraan imtixaano lagu cabirayo inta caqligoodu dhan yahay kadibna waxay helaan buundooyin u dhigma heerka garaadkooda marka uu qofku sarreeyo buundooyinkiisa IQ-ga ayaa markaas qofkaas loo tixgelinayaa inuu yahay shakhsi caqli badan qofka dunida ugu IQ-ga sarreeya waxa lagu qiyaasay inaanu dhaafin 110 waa tirada ugu badan ee qof bini'aadan ah ilaa hadda caqligiisu gaaray dhibcaha IQ waxay caadi ahaan ka tarjumayaan tayada waxbarashada iyo agabka ay dadku ka heli karaan deegaankooda ama gobolkooda maxalliga meelaha adduunka ee ay bulshadoodu haysato buundooyinka hoose ee cabirka caqliga ee IQ-ga ayaa caadi ahaan inta badan ka liita oo horumarkoodu aad ugu hooseeya gaar ahaan dhinaca waxbarashada marka loo eego ama la barbar dhigo waddamada leh buundooyinka sare ee dhinaca IQ-ga cilmi baarayaashu waxay kaloo isticmaalaan cabirka IQ si ay u go'aamiyaan oo ay labadii sanaba mar u soo saaraan liiska waddamada dadkoodu ugu caqli badan yihiin dunida khariidada idin muuqata waxay tilmaamaysaa dal kasta bulshadiisu inta garaadkoodu la eg yahay waxaana lagu jaangooyey dal kasta inta ay bulshadiisu ka haysato celceliska dhibcaha IQ-ga sare haddaba waddankee bulshadiisu haystaan celceliska IQ-ga dunida u sarreeya daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal badan sida Richard iyo David Becker celceliska dhibcaha IQ-ga ee ugu sarreeya adduunka waxa haysta bulshada Japan waxaana ku soo xiga muwaadiniinta Taiwan iyo Singapore dalka dadkiisu ugu caqli badan yihiin dunida waa Japan celceliska caqligooduna waa 106 waxayna 5 darajo kaliya ka hooseeyaan tirada ugu badan ee qof bini'aadan ah ilaa hadda caqligiisu gaaray taasoo ah 10%. kuwani waa 10 waddan ee bulshooyinkooda lagu sheegay inay dunida ugu caqli badan yihiin kaalinta koowaad waxa ku jira Japan oo haysata 106 Taiwan ayaa ku xigta oo haysata 106 iyaduna Singapore 105 Hong Kong 105 China 104 South Korea 102 Belarus 101 Finland 101 Germany iyo Netherlands ayaa iyagu hal kaalin ku wada jira kaalinta 10aad waxaana ay haystaan 100 haddaba maxaa sabab u ah in caqliga dadka dunidu sidan u kala duwanaado cilmi baarayaashu waxay u badinayaan laba arrimood oo kala ah dhanka sinjiga genes iyo dhanka nafaqada cuntada iyadoo ay jiraan arrimo kale dhanka sinjiga way adag tahay in wax laga bedelo waxaase wax laga qaban karaa dhanka nafaqada iyo cuntada tusaale dadka reer Japan cuntadoodu waxay aad ugu tiirsan tahay badda kalluunka iyo noolayaasha kale ee badda ku jira ay aad u cunaan caqli badni kaliya kama ay faa'iidin sidoo kale waa dadka adduunka ugu cumriga dheer sidoo kale dadka Scottishka ee dega waqooyiga boqortooyada midowday ee UK waxa ay taariikh ahaan cunaan kalluunka nooca herring iyo waliba salmon loo yaqaano xilliyadaas ay aadka u cuni jireen adduunyada waxyaabo gilgile dhanka sayniska tiknoolajiyada iyo dhaqaalaha ayay Scottishku dunida ku soo kordhiyeen tusaale waxa ka soo baxay aabihii dhanka tamarta korontada James Watt gundhigihii dhaqaalaha Adam Smith aabihii TV-ga John Baird curiyihii insulinka daawada sonkorta John G.R. Meslod curiyihii qalajiyaha Alexander Fleming iyo kuwa kale waxaa jira habab kale oo lagu cabiro garaadka cabirka IQ ma aha habka kaliya ee lagu cabiro garaadka waxaa jira siyaabo badan
oo kala duwan oo lagu soo saaro dalalka ugu caqli badan adduunka. tusaale ahaan waxaa la isbarbar dhigaa waddan walba buundooyinka imtixaanka akademiyadeed, suurtagalnimada ballaadhinta xadka aqoonta iyo soo bandhigidda tiknoolajiyada xogta cusub Intelligence Capital Index, ama xitaa tirada abaalmarinta Nobel ee waddan kasta uu ku guulaystay. shaxdan idiin muuqataana waxa ay muujinaysaa 10 waddan ee adduunka ugu caqli badan, kuwaas oo aan lagu salayn buundooyinka IQ, laakiinse waddamadan waxa lagu saleeyay buundooyinka imtixaanaadka ardayda ee akhriska xisaabta iyo sayniska. waxa ugu horeeya China, waxa ku xiga Singapore, kaalinta saddexaad waxa ku jirta Macau oo China hoos tagta, Hong Kong, Estonia, Canada, Finland, Ireland, Korea iyo Poland. xogtan waxaan ka soo xigtay macadka Ulster, Maxamed Cali Geedi iyo World Population Review. waa Cabdirasaaq Shuboon, intaan dib u kulmayno nabadgelyo.